شرح مدحوينه waxaan ka codsanayaa cafis inuu icafiyo oo cafis baan ka dalbanayaa cafiskaas waxa keenay baan rabaa marka iyo taageeradaba halkan inaan ka cadeeyo waxa jirtay Soomaalidu waxay ku mahmahdaa been fakatay run uma gaarto waxaan ka mid ahaa dad loo dhiibay ama cayrsaday kubad aan gool lahayn kubaddu haday gool leedahay way dhalataa laakiin hadaysan gool lahayn ma dhalato marka kubad aan gool lahayn dad loo dhiibay baan ka mid ahaa dadkaas oo ahaa in laga dhaadhiciyay team oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur hogaaminayay inay dibandaabiyeeyeen dhibaato u geysteen Soomaalida gaar ahaan badda Soomaalida waxaan ka mid ahaa dad ciil u qabay Cabdiraxmaan wa hadalkan leeyahay iga cafi hadalkaasi waxa uu soo afjarmay xeer ilaaliyaha guud ee dawladda federaalka oo aan aad ugu duceeyay markuu shirka jaraa'id qabtay oo yiri warqadii oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur saxiixay iyo tiimkiisu ayaa badbaadisay badeena Soomaali oo dhanna u soo celisay hankii baddaas ay ka lahayd waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo anigu hadee arrin shakhsi ah culuga aanan ahayn Cabdiraxmaan Cabdishakuur laakiin kubadii la ii dhiibay maalintaasaan goolkii aan gashay wuxuu noqday inaan musharaxa madaxweynahana cafis weydiisto dibna uga laabto fakarkii aan qabay oo ahaa in dhibaato halka ka jirtay sidaas awgeed waxaan rabaa musharaxa madaxweynuhuna inuu icafiyo halkan intiina fadhida iyo inta ay dhageysanaysana waxaan kula talinayaa mawdku meel idin jooga ma ogidin kuwiina halkan fadhiya iyo kuwa ay dhageysanayaba cadaaladda inaad u laabataan alla inaad isku xirtaan inaad alla ka baqdaan dadana leh oo siyaasadu ka dhaxayso inaysan idin dhiibin kubad siday horey noogu dhiibeen aan gool ay ku dhalataan lahayn waxaan idin leeyahay cidii aan qabin waa meesheeda laakiin cidii qabtay teamka uu hogaaminayo musharaxa madaxweynuhu cafis weydiista